wax ka baro qisada qowmkii reer bani Israa'iil ee Allah subhanahu wa ta'ala u bedelay daanyeero iyo doofaaro. xilligii Nabi Daawud alayhi salaam ayaa reer bani Israa'iil waxay u yimaadeen Nabi Daawud alayhi salaam, markaas waxay ku yiraahdeen, Daawud waxaan rabnaa inaad Ilaahay noo baridid inuu nooga soo wareejiyo maalinka jimcaha ah, maalinka ciida ah, oo uu noogu soo wareejiyo maalinka sabtida ah. Nabi Daawud alayhi salaam wuu weydiiyay sababta, markaas waxay ugu jawaabeen, Allah subhanahu wa ta'ala koonkan markii uu abuurayay wuxuu bilaabay maalin axad ah, wuxuu dhameeyay maalin jimco ah, wuxuuna nastay maalin sabti ah. anaguna waxaan rabnaa inaan nasano maalinka sabtida ah oo nalooga dhigo maalinka muqaddaska ah. Nabi Daawud alayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala ayuu u bariyay. Allah subhanahu wa ta'ala waa uu ogolaaday in maalinka muqaddaska ah loogu soo wareejiyo maalinka sabtida ah, laakiinse waxaa laga xarimay maalinka sabtida ah in ay wax shaqo ah qabtaan oo ay kalluumaystaan. waxaa loo ogolaaday 6 maalmood oo kale inay waxay rabaan sameeyaan oo say rabaan u kalluunsadaan, laakiin maalinka sabtida ah kalluunku hadduu lugtooda hoos yaalo xataa inaysan taaban. waxay deganaayeen tuulo xeebeed main source-gooda cuntada uu ahaa kalluunkaas badda ay kasoo qabsadaan. 6 maalmood oo loo ogolaaday inay kalluumaystaan ayaa badda markii ay galaan waxay kasoo waayaan kalluun. Allah subhanahu wa ta'ala baa isagoo ku imtixaamaya wuxuu ka kaxeeyay kalluunkii badda ku jiray oo dhan. halkii maalin oo laga xarimay inay kalluumaystaan ayaa kalluunku wuxuu soo dhooban jiray xeebta isagoo raxan ah, laakiinse Allah subhanahu wa ta'ala maalinka sabtida waa uu ka xarimay inay kalluumaystaan oo kalluun soo dabtaan. qofkii kalluun dabta maalinkaasna wuxuu noqonayaa qof caasi ah oo dambi galay. muddo xoogaaya markii ay joogeen ayay intay adkaysan kari waayeen ayay waxay yiraahdeen, bal xeelad iyo khidad aan la nimaano aan maalinka sabtida ah aanan ku dambaabayn kalluunkiina aan kusoo daban karno. shaydaan baa wuxuu u qurxiyay xeelad yar oo khiyaamo ah. wuxuu ka dhaadhiciyay in shabakadaha ay kusoo kalluumaystaan ay badda sii dhigtaan oo sii daadsadaan habeenka jimcaha, maalinka sabtidana kalluunku markuu yimaado uu u soo galo, kadibna maalinka axadda shabakadihii u buuxa ay la soo baxaan oo kalluunkii ay saa ku helaan. 2 qaybood ayay u kala qaybsameen marka. qayb fikradda ka soo horjeeda oo u diiday oo tiri waxaasi waa dambi, Allah subhanahu wa ta'ala maalinkaas wuu idinka xarimay inaad kalluumaysataan, ama xeelad ku kalluumaysta ama si dharagtii ku kalluumaysta. laakiinse waa ay diideen oo waxay yiraahdeen, waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan, anagu shabakadihii waxaan sii daadsanay maalinka jimcaha ahaa, kalluunku isagaa iska soo galay maalinka sabtida ah, maalinka axadana dee waa maalinkiina loo ogolaa inaan kalluumaysano oo bahalihii buuxa ayaan soo qaadanaynaa. qoladii mu'miniinta ahayd ee ka diiday inay waxaa samayso oo amartay in Allah subhanahu wa ta'ala aysan ku caasiyin ayaa markii la dhageysan waayay waxay ka baqeen ciqaab iyo cadaab Allah dhinaciisa ka yimaada inuu dhamaantood uu saameeyo. markaasay waxay samaysteen derbi iyaga iyo u dhaxeeya qoladii sabtida kalluumaysan jirtay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa subaxii markii la soo toosay ba qoladii mu'miniinta ahaa derbiga dhinaciisa kale waxay ka waayeen wax sharqan ah. markaasay nin u direen, waxay ku yiraahdeen, bal or derbiga fuul oo soo eeg kuwii maxaa ku dhacay. derbigii markii uu ka qoraansaday ayuu wuxuu arkay daanyeero iyo doofaaro badan oo meeshii yaacaya iyo dadkii oo ka maqan. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dhamaantood wuxuu u bedelay daanyeero iyo doofaaro. waxaa la yiri dhalinyaradiina wuxuu ka dhigay daanyeero, odayaashiina wuxuu ka dhigay doofaaro. kuwii mu'miniinta ahaa ee aan la bedelin ee derbiga dhinaciisa kale ku noolaa ayaa intay soo wareegeen ayay waxay u yimaadeen daanyeeradii iyo doofaaradii meesha yaacsanaa. iyagu ma fahansana mana daraansana in daanyeeradan iyo doofaaradan ay yihiin dadkii qoomkii reer bani Israa'iil ee Allah subhanahu wa ta'ala caasiyay oo saa laga dhigay. laakiin kuwan daanyeerada iyo doofaarada ah iyagu way garanayaan oo nin walba ninkii ugu dhawaa ama ina adeerkiis ama walaalkiis ama abtigiis ayuu intuu soo ag fariisto ayuu ooyay. markaas ayay dareemeen oo ay ogaadeen in ciqaab iyo cadaab Allah subhanahu wa ta'ala dhinaciisa ka yimid uu ku dhacay oo uu u bedelay daanyeero iyo doofaaro. dadkaas daanyeerada iyo doofaarada laga dhigay waxay noolaayeen 3 maalmood oo kaliya, kadibna waa ay wada dhinteen. Allah subhanahu wa ta'ala wax taran ah kama uusan reebin, kulligood waa uu halaagay oo waa uu gumaaday.
halkaa waxaa ka baxaysa fikradda dadka qaar ay dhahaan daanyeerada iyo doofaaradu waxay kasoo jeedaan qoomkii reer bani israa'iil ee la nasakhay. laakiinse daanyeerka iyo doofaarku waa xayawaano Allah subxaanahu wa tacaala iyaga ka horreeyey oo hortoodba jiray oo uu abuuray. dadkii uu u bedelay daanyeerada iyo doofaaradana kulligood 3 maalmood gudahood ayuu ku wada gumaaday oo ay ku wada la'deen.